gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ka hadlay dil ka dhacay deegaanka Guuburlibaax ee gobolka Togdheer. Gudoomiyaha ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen raggii falkaasi geystay, isla deegaankaasna ay ku aaseen marxuumkii gacanta ka xaqda darani ay dishay. Gudoomiye Ramax ayaa sidoo kale baaq u diray xukuumadda Somaliland. الحمد لله رب العالمين. أوشاسي وفي وليس وين لحي وإسلام كيبا صلاة وشرين لا يمكن سوق ولي إلا قدرك إلهي وبشغله ويدعي الدونان كما هو رمي لكن تذكير وكلام خاصة ديني واحتساني وناك بدل ما نقرأت كلامي ميتكي بيكو آستين نبتقليا دينا ويفضل قادر هذه أدفع المغلبات بكم عندقيا انتي نقلاش قيسي سيدي الله سوق والله قاعد تقول لها iyo wali baariska waa socotaa waa la soo qabtay gacan ku dhigay alxamdulillaah rabbil caalamiin iyo cid kasta oo ku lahaydba baaristi iyo hawshii ciidamada booliska oo saaran wixii hawsha ku yeeshana talabaad baan ka qaadnay meel wanaagsan oo noo maraya ma oran karo wax walba waan soo gabagabeynay hase yeeshee wanaag baan kala kulanay intii gacanta ku taalay waana aad iyo aad waxaan naqayaa dhan walbana waxaan runtii imikana ugu baaqayaa ugu celcelinaya in nabadgelyada la ilaaliyo. geesta kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa 10 neef oo ariga kala wareegay majaajileystayaasha Sooraan iyo Jawaan oo ay ugu talagaleen in ay kaga qayb qaataan barnaamijka ka soo kabashada abaaraha oo ay hore ugu dhawaaqeen. gudoomiyaha gobolka Togdheer 10kii neef ee aanu kaga ballan qaadnay qaar ururintii madaxtooyada lagu ururinayay oo aanu ku wareejinayno maanta anagu gudoomiyaha gobolka Togdheer qof waliba wixii uu ku ballan qaadayna in la helo waxay ahayd wax waajiba. gudoomiyaha gobolka Maxamed Cali Salmaan Ramax waxaan leenahay gudoomiye naga gudoon annagu hawsheedii ka soo baxnay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labadeena oday ee aynu jecelahay oo runtii aad iyo aad uga qayb qaata wacyigelin hadday tahay iyo hadday tahay waxtarba waa arkaysaan xoolo dhaqmaatina bay maanta keeneen 10 neef bay keeneen deehayntoodana waynu ka warhaynaa dee tijaartii iyo ganacsatadii ballan qaaday dhaqaalihii ay ballan qaadeen inay keeneen baanu iyagana keenaan baanu ka codsanaynaa. Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Bulsha TV, Burco.